bilaabo waxa weeye dugsiga maanta jooga magaciisa waa Tariiban Primary and Secondary School wuxuu ka howlgalaa oo ku yaala degmada Tariiban khaas ahaan magaalada Tariiban iskuulka waxaa la aasaasay xilligii dowladda rayidka ahayd 1967 baa la furay ardayda ugu horreysay la qabtay ilaa waqtigaas duruufo kala duwan ku soo shaqeynayay waxaa dib loo furay 1999 markii waxa weeye maamulka Puntland la howlgeliyay dugsiyada dugsigu wuxuu leeyahay galaaska koowaad ilaa galaaska 12aad ama form 4ka waxaa ka baxaya sanadkan dufcadiisii lixaad oo form 4 ka baxaysa dugsigu dugsi baaxad weyn waxa weeye arday tiro badan baa dhigata numberka ardayda dhigta dugsiga hoose dhexe waxay yihiin arday dhan 612 arday numberka dugsiga ardayda sare dhigatana waxa weeye 96 arday marka ardayda markii isku waxay noqonayaan arday dhan 728 arday baa iskuulka dhigata ardayda intaa leeg oo iskuulka dhigata iskuulka marka wuxuu qabaa baahiyo wasaaradda aan dhowr jeer hore kala hadlay wasaaradda waxbarashada iyo waxa weeye qolyaha kale waxa weeye hay'adaha iyo wax fangareeyaba cidina soo booqatay cidina maqasho aan u sheegnay haddana mar labaad ugu baaqayna waxa weeye inay nagu caawiyaan wax karaankooda ay ka qayb qaadan karaan iskuulku baahiyaha koowaad waxaa ka mid ah waxbarashada dhanka waxbarashada waxay u baahan tahay practical bay u baahan tahay ardaygu theory keliya in lagu wado waxa ka fiican hal practical siiyo waxaan ku maamaahan English maamaaha waxay inta sheeg a picture worth than thousands of words halka sawir baa wuxuu ka qiimo badan yahay kun eray saadaradeed hadda meeshan ku suganahay waxa weeye xafiiska imtixaanaadka dugsiga waan u jeedaa waa library wuxuu magacaabay yahay buug xoogaad yaala buugta taala ma aha buugtii loogu talagalay ardada waa buug iska oldi ah oo waxa weeye sheegan wax badan ay soo qaadan karin wax badan ay ka fahmeen ardada waxa weeye form 4 oo kale waxa weeye ma haystaan buug akhris waxay ku go'an yihiin kaliya wixii macaan ku note-kaas waxay akhristaan marka ma lahan library ma lahan habeenkii waxa meel wax akhrisan ma lahan library waxa weeye sheeg maantii buug laga siiyo ma lahan marka dhanka buugta oo kale waxa weeye aad baan uga dayacanahay wasaaradda dhowr jeer waa kala hadalnay waxa kale oo jira waxaan aad uga caawinaynaa wasaaradana waxa weeyaan waxa uu baaqaynaa inay waxa weeye wax ka qabato waxyaalaha la yiraahdo Tariiban waa gaariwad xaquuq badan aan wasaaradda ku lahayn baan helin waanu haddaan ognahay guddoonka cusub ee degmada waxa uu gobolka Mudugna aan u sheegnay inuu wax ka qabtaan aan rajeynayno waxa ka mid ah waxyaalaha wasaaradda garow ka baxaya waxa qaatay inta laami ku taala magaalada laami ku yaala bas baa waxa weeye la geeyaa waxa weeye haday taxaasii tahay haday taxadajin tahay haday tahay waxa weeye curriculum ama waxa weeye manhaj cusub la sameeyo kurtaana waxba kama yaabo waxa weeye manama soo gaaraan waxyaalaha kale oo waxa weeye sheegeen mashruucyada waxa weeye seminaarada waxun waa naga soo gaaraan inkastoo aan leenahay wali ba xaq lahaydeen waxba ay ka maqan baahi aan tabanayno hadana ayagu waan soo gaaraan wasaaradda waxaan leenahay war waxaan leenahay oo waxa weeye dadka wala sameynahay waan la soo gaarsiiyo maanta oo bishu tahay 6 bisha Maac 2018 waxa howlka weyn ee degmada ka dhacaya tartan aan u talagalnay dugsiyada hoose dhexe ee degmada ku yaala marxaladda soo maray waxay ahayd tartanka marka hore wuxuu fikir ka imaaday dugsiga waxa weeye sare hoose dhexe ee sare ee degmada Tariiban baan ku bilownay annaga u tagnay waxa weeye deegaanada annaga ka soo dhaadhicinay marka asla qaadana ka bacdi waxaan gudbinay wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha cusub aad baan ugu mahadcelinaa kaliyahay Axmed Buruuse oo noo aqbalay tartankana waa noo soo diyaariyeen maanta tartanku u dhacaya tartanka marka marxaladda soo marnay waxa ka mid ahaa fanka ku baxay cid naga maalgeliso waxa weeye fan intaas waxa arday la soo keenayo Tariiban imaanaysa oo martaqaadi Suuriya iyo waxa weeye abaalmarin iyo waxa weeye qarashaad badan ku baxayo intaas waxa weeye soo marayaan waxa weeye transportation iyo ku baxayaan cid maalgelin toos ah geysatay waxa weeye haddana markii aan wax qabanay ma jirin cid haddana wax ka dhowrano haddana garanayna ma jiro maanta waxa weeye insha Allah waxaan jeclaan lahaa taas ku tashanayna waxa weeye waxaan awood karno inaan ku bixino
horumarka waxbarashada degmada markastana waxaan usoo jeedna waxa weeyaan anagu ciddii kaalmeynaysana waa soo dhaweynaynaa waxa weeye annaguna waxaan diyaar u nahay guntiga dhiisha uga dhiganay inaan waxa weeye sheeg aan qabsano waxaan qabsan karno tartankan hadduu qabsoomo sida ogtihiin waxa weeye gacanta jarriiban tartan ku qaban ka dhawayadaha saa daraadeed ba waxaan jeclaysanay haddii aan tartanka qabano abaalmarino aan badnayn aan saa u weynayn ayse waxa weeye annagu karaanka iyaga markaas leena waa in xooggiina waa dadaasheen inaan bixino haddii ilaaha ilmayo abaalmarino tira badan waxa weeye inta hadda ka karno inaan bixino waxa weeye awalna hawsha qarashkeedii mashruuceeda anaguna galay oo waxa weeye annaga kharash garaynay haddana waxaan rajeynayna waxa weeye inta karaanka iyaga inaan waxa weeye aan sharafno waxa dadka martida tartanka u qaban macallimiinta oo kale mushaaraadka iskuulku waxa weeye saas ka baxsha macallimiinta mushaarkiisa inta waxa weeye ardada laga qaado qoryo waxna soo gaarsiiyay way jiraan oo wall bangi oo kale ka mid tahay oo marmar la helo waxa weeye iskoolada dhan bay isku soo helaan jeclahay wax kale hadda la sheegi karo oo macallimiinta mushaar qaataan